kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan ka qaadi doono xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta xusbiga wadani Cabdulaahi Jaamac Ismaan Geeljire oo aan kula kulmay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden muddooyinkii ugu dambeeyayna wuxuu safar ku kala bixinayay wadamada qurbaha ugu horeyn Cabdulaahi ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV bal waxaad nooga warbixisaa safarkaagan aad ku timi Sweden wuxuu daaran yahay يوسف يبولشة تي في سعدال هيو وكسو بلاوي ودنك قدر يمكن أن كسو مري أنا كميدا كنا نقول دونا هدي الهيرة هل كنا نكوي وحو دريه هاي لكلنك تاجرياش حسبية ودني وأنا أقول رميه حالة ودنكي حسبية iyo waajibaadka guud ahaaneed iyagana laga rabo sidii ay iyaga iyo xisbigu u wada shaqeynayeen iyo wixii la mid waa tahay bal waxaad kaloo nooga warbixisaa xog haye xaggay marayaan hawlaha xusbiga dal iyo dibadba arrimaha xisbiga wadani guud ahaan way fiican yihiin xisbiga wadani saad ka warqabto waa xisbi markiisa hore da ahaan aan muddo badan jirin laakiin aada u ballaaran oo taageero ballaaran haysta waa xisbi isu diyaar garaynaya in uu kaga dhabeeyo inuu noqdo rajada shacabka oo uu noqdo mid ummadda haga wax wanaagsan loo qabta barwaaqo iyo bashbashna gaadhsiiya ilaahay ka soko xisbigu hawlihiisa abaabul iyo maamul sidii uu shirkii loo qabtay October shirweynihii golaha dhexe ee Barca lagu qabtay dib u habayn maamul iyo mid siyaasadeed ayuu ku jiraa oo hore uu uga soconayay halkii uu joogay si wanaagsan baana hawlahaas ugu socda waa tahay xog haye waxa muran ka taagan yahay komishanka Somaliland ee qabanaya doorashada Somaliland hadda waxa jooga 5 xubnood halka ay ka maqan yihiin labadii xubnood ee labada xusbi mucaarad sidaad u aragtaa adigu arrintaa والله أنت هالك وايد ضعفتي بقى ده واحد مريسي إن لده حاديو وقال لي إسلام بالله يسويه أنا جوان صدي بس كنا راعي مع مدحوينها إن كوميشن كهذا مجعبا إيش دورها ككلي مادي لبدلوه كي هو السعودي أي مريس أرنتها الله واضح حسبي أسد حسبي iyo madaxweynuhu marka hore waa ogolaadeen laakiin waxa muuqata inaan weli ka soo dhamaanin xagga madaxweynaha oo ay arrimaha boqolkiiba 99 arrinta xalinteedu ay gacantiisa ku jirto sida ay awoodda qarankuba boqolkiiba 8 in ka badan ay gacantiisa ugu jirto tan ay gacantiisa ugu jirto marka waxa muuqata inaan weli مراد كليه هيبة إلهي بقى مراد كليه هي لكن ولي واحد تفهم يان ما مودين تفهم ولو ما صارت أصلا كاسمر واتها حق هي دوان وحلا هذلي ورباحنتها قدوميها كوميشن كالصوب عبد الرشيد رياح وحنا وشجعي إن أنا يسأسيلين أي شيء شقين دونا شنطة حنود كوميشن كأهي هاد الجوجة سيدي وارك تاني كوهرنتها كحسبيهان طبعا waxaa ahayn baysaga laga filmaayo dowladda war isasiilay waa finish waa intii la sugayay waan gartay marka hadalkiisu hadal dadka wax ku soo kordhinaya ma aha isagu arooskiisa inuu ka mashxarado oo banaan yahay laakiin ma aha isaga lagama sugay isagu waa naftiisa kuma mucaarad ahayn wax intaa ka badan isaga lagama sugay haddiiba ay iscasili waayaan lana bedeli waayo komishanka cusub muranku ka taagan yahay maxaa idinka meel yaala
wala anigu haddiiba kuma shaqaynay waxaan doonaynaa inuu madaxweynuhu dee arrintaa dhameeyo waan gartaa haddiidu waxa weeye waxaan dee falmar dhacdo meel bay maraysaa madaxweynuhu gacantiisa ay hawlihii ku jiraan anagu diyaar baanu ahay inu kala shaqayno wixii uu nooga baahdo laakiin dee haddiiba ma taale waxaan u baahanay inuu madaxweynuhu arrintaa uu fuliyo oo ummaddana dee uu u sheego ile xilkeedii baa saaran madaxweynaha halka u sarreysa wuxuu u joogaa inuu wax inoo xaliyo waxaynu u dooranay wuxuu ahaa inuu wax inoo xalilo halka ugu sarreysa umaynaan geenin inuu dee uu carqalad rabitaanka ummadda ku noqdo umaynaan geenin isagana taa ilaahay ha garansiiyo haynoona fududeeyo insha allah ilaahay haynoo fududeeyo haddaynu intaa kaga baxno su-aalaha commissionka cabdullaahi geeljire ahaan waxaa la yidhahdaa xusbiga waddani waxa uu u badan yahay reer oo waa xusbi reer arrintaa adigu sideed u aragtaa dee kulmiyaba waxaa la odhan jiray waa laba reer markaa reerkii laba keebaa badan hadday qabyaalad noqoto aniga labada ayla badan haddaan tirada si kale loo xisaabinay waxaase qaba anigu saddexda xusbi bayna yihiin saddex xusbi qaran ya marka la iska reeba dacaayadda qoloba xusbi cid dhexaa waxaan tidhaha anigu saddex xusbi qaran oo sifa sharciga ku jooga oo ummadda doonaya inay wax u qabtaan saddex xusbi qaran kulmiyana de imika marlabaadkii baa xukunka gacanta ku hayaa labada kalena waa raadinayaan markaa saddex xusbi qaran baan u arkaa haddii ay noqoto tan dacaayaddan dhexdhexana de kana haddii reer lagu sheega kaasina labay ahayn ka badanoo lasoo sheegay qabyaalada ta badanha lasoo sheegay marka waa tahay adigu hore waxaad uga mid ahaan jirtay xusbiga kulmiye balse dhowaan waxaad usoo diga rogatay xusbiga waddani waa maxay sababta ka dambaysa inaad ku soo biirto xusbiga waddani horta anu ma guurin mana diga rogan sifa aan hagaagsanayn oo aan nidaamkana marsanayn waxay ahaydna sababta jirtayna aanan leemankadaa garanayn ayaa horta xusbigaa hore lagaga saaray 14 sannadood baan ahaa sababaan uga diga rogtaana ma jirin xilal baan ka soo qabtay xilal dowladnimo baan ka soo qabtay gudihiisa baan ka qayb galay labada goorba markaan ka kale ku biirayo dee waxa soo hadhay waa laba xusbi saddex xusbi baynu leenahay saddex xusbi dee marka laba soo hadheen xusbiga kale ku soo xigay maaragtay baaxad ahaan iyo taageer ahaan waa xusbigan qofku dee wuxuu doonaya wuxuu jecelyahay inuu halku wax ka qaban karayo siyaasiga xusbiyada wax ka qaban karayo garo uu himiladiisa waa inuu qaranka wax u qabto uu kala mid noqdo marka kana ii noqday ka labaad ay soo jiitay cabdullaahi geeljire ahaan waxaad ka timi waddankii xogogaalna waxaad ka tahay waxqabadka dowladda waxaana la soo bandhigay dhowaan waxqabadkii dowladda ee 2019 sideed u aragtaa adigu arrintaa wallaahi dowladda iyada waxay qabatay iyadaa sheeganaysa anigu waxa ka dhiman baan shaqadeedu waa wax ka dhiman waxa ka dhiman waxa weeye dhaqaalihii ma kobcin waabuu ka sii hooseeyaa siduu ahaan jiray waayo siyaasad ahaan xukuumad siyaasad ahaan waddanka carqalad gelisay bay u eg tahay markaana waxay mar hadday saasi dhacdo buuq yimaadana kala shaki baa imanaya qof waliba xoogaagiisa ir guntigu ku haysanaya lacag cusuboo waddanka la gashanayo oo maalgashi iman mayso halkaa dhaqaalahaasi waa liitaa xagga kalena dee waaba waxaa muuqata in ay aan horumar badan laga gaadhay xaggii siyaasaddana oo aynu muran la kowsanay ilaa iminkana aynu weli wadno xukuumadda wixii ay qabatay de waxay taallaa iyada u taallaa insha allahu xukuumadaan wax qabanoo dee meel iska fadhidaa ma jirto laakiin wixii qabatay dee iyada u taallaa annaguna waa wixii jira ay sheegto dee ama waan uga markhaati furi
ama wixii ka dhiman baanu sheegi. waa tahay xog haye ugu dambeyntii barnaamijka inagu gebagabeynayna waa maxay fariinta aad u dirayso dowladda Somaliland shacabka iyo xisbiyada mucaaradka marka ugu horeysa horta madaxweynaha oo ah wadanteeni ayaan u dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne mar haddii ilaahay gacanta kuu geliyey taladii ummaddan mas-uulkeedii koobaad tahay ood kursigii ugu sarreeyey maanta fadhido waxaanu kuugu baaqaynaa inaad ummadda aad ku hoggaamiso niyadsami, aad ku hoggaamiso aargoosasho la-aan, aad ku hoggaamiso culays hore oo aad soo jiidanaysa ood la timi inaad iska reebto, inaad ku hoggaamiso inaad u xallisho intii ilaahay kugu ogyahay adna aad qaban karto mashaakilkooda taagan oo niyad wanaaga waxaad ilaahay qofka intuu u qoray unbuu kursiga joogayaa. waxaanu jecelahay inaad dadkii dalkan usoo halgaminayso waad ka mid ahayd. waxaanu jecelahay inaad wanaag kaga tagto intaad joogtana anagu aan wanaag kugula shaqeyno. waxaa kaloo aan ii hadhay xusbiyada waxaan leeyahay iyo taageerayaashooda waxaa u taagan tihiin waxa weeye inaad ummaddan wax u qabataan oo bedeshaan xukuumadda jirta oo hoggaan u noqotaan ummaddan idinkuna la yimaada mas-uuliyaddeedii. hadda si wanaagsan bay wax u socdaan, mas-uuliyaddeedii iyo aragtideeda nala yimaada. shacabkana waxaan leeyahay wanaagii wada jir ayay wax ku qabsoomaan. qaybsanaan iyo qabyaalad waxba idinku qabsoomi maayaan oo maalinba dhinaca la isugu yaaco. waxaan leeyahay kulligeen aan gacmaha is qabsano. waddan faqiira oo baahi badan baynu joognaa, inu wax wada qabsanaynaa, wax loo qabanayaa. idinkuna baahidiisa qabtaan oo ogtihiin. kulligeen madax iyo mas-uuliyiin kale iyo dad shicibaba aan gacmaha is qabsana baan leeyahay kulligeen oo wada jir iyo walaalnimaan ka shaqeyno. daawadayaal intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa waraysigii aan ka qaadayey Cabdulaahi Jaamac Cismaan Geeljire oo aan kula kulmay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. waxaan ahay Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur. waxaad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV.